جلاس بي سيبر gabadheeda niyaa qoorteeda katiinka ku jira nolosheena ayay ku xiran tahay adiga waxaa laga rabaa katiinkaas inaad macaan aniga ma aanan ku fahmin waxaan adiga qarinaysana waa maxay Dragos iyo adigan xiriirkiina ka dhaxeeyo muxuu yahay aaba waxay fahansiin iga jooji su'aalaha hawsha aan ku diray oo kaliya qabo katiinkaas waa inaad ilaalisaa qof bin aadan inaad u sheegto ma rabo مسلسلكani wuxuu gaar u yahay Muqdisho Cable TV بسم الله الرحمن الرحيم إبليكات آتيو عرفا إلهي كعنت هذا كو بركيو waxaan ku weydiinayaa dhirtaana ku dartaa halkee ka dhirtan anaga deegaankeena bay ka baxdaa qurxay cunadana waad ku darsan kartaa qofka dhaawacna waad ku daweyn kartaa ismaan haddaan siino waa caafimaadaan soo maaha insha allah ku dar anigu waxaan kaa doonayaa inanka ismaan leera inaad il gooni u lahaato aad xanaanaysood xafido waan xanaaneyn doonaa hooyadiis waxaa la dhihi jiray xaliimatul suldaan asigoo yar ayayna dhimatay aabiis ayaa soo xanaaneeyey ilaa iyo haddana aabiis ayaa gacanta ku haya wiilkan xaaskiisii markii geeriyooto kadib isaga muxuu u guursan waayey xiriirka xaliima suldaan iyo ka dhexeeya aldur wuxuu ahaa xiriir aad iyo aad u weyn ilaa iyo hadda dadka way ka sheekeeyaan xaaskiisa markay dhimatana ilaa iyo hadda asiga ma uusan guursan mudana arto xaaskiisa markay geeriyooto kadib wuxuu jaanis siiyey dadka deegaanka si sharaftooda sumcadooda u badbaadin lahaa inta kala soo hartayna wiilashiisa ayuu waqtiga ugu badan la qaadanayay guurna waqti uma uusan hayn cimri dheer iyo caafimaad baan carruurtiisa u rajaynayaa haddii ay caqligal tahay anigu maraqi waan diyaari waxaanan doonayaa inaan cusmaan u geeyo bravo caruuray bravo ciyaarta aslihaan iska jir gabadhayda iska ilaali aybras adigan tartiib bravo aybras ma sha allah bravo aslihaan gabadhayda wax fiican ayaad samaynaysaa aybras wiilkayga adigana kama yaraysid dhaqsada eeshacala aybras eeshacala wiil seeftaad wareejinaysa khatar aslihaan bravo gabadhayda waad ku wada aniga gabadhan lama dagaalayo sababta seefta u dhigtay maxay tahay ii sheegba aniga dagaalkayga uma baahni ayaa ku dhacay seefna maba qaadanaye yaa wiilkayga fiiri seefta inaad tuurto maxaa sababa wiilkayga dagaalyahan in la naqitmarit miya aniga hore ayaa kuga sheegay seefku ma dagaalamay adiga seefku dagaalan daarta aniga qalinkeeda maya wiilkayga afkaaga waxaas mar dambe yaysan ka soo bixin ee dhegayso adiga qalinka waa inaad iska ilowdaa tan kale laba gacan ayaad leedahay gacan waxaa laga rabaa qalinka inaad ku qabato tan kalena seefta inaad ku qabato bamsi maanta sidee wax kaa yihiin ay baraasna maxaa ku haysataa maanta mudane actimos aniga wiilkayga waan la yaabanahay erayga afkiisa ka soo baxa ayaa aad ii niyajibiyey wuxuu yidhi aniga qalinka inaan qaado ayaan rabaa seeftan aan iska dhigo waxba cunugaan ha dhibin dadka deegaanka jooga nin seef qaatana way u baahan yihiin nin qalin qaatana way u baahan yihiin maadaama labadooda loo baahan yahay adiga wiilkeen aa u ducaysaa waajib kugu ah maaha inaa qasabto cunugu waa uu yaryahay wuxuu raba inaa u samayso waay maanta actomas waa inaad u mahad celisaa sababtoo ah isaga dartiisa ayaan aniga ku dhaafay laakiin tan kaama yeelaayay soo bax gudaha soo gal gal soco dhaqso teennada gal
waa kaa sii tegay walaalkay إن شاء الله اسم دافني gabadhayda ii noolow ayaan ku dhahay gabadhayda maasha allah gudaha galso dhaqso eesh calaa gabar ayaa tahay